Swedish artist Lars Vilks has died in a traffic accident. Assalamu alaikum. qaabku u geeriyooday waxa lagu tilmaamay mid u fiirsasho leh. Madaxa booliska koonfurta Sweden ayaa tiri erayadan soo socda. Qofkii aan ilaalinaynay asaga iyo raggii aan u wakiilanay. Asaga iyo raggii aan u wakiilanay ilaalintiisa ayaa u dhintay qaab muruga leh oo aan filaynin. Haddaba maxaa dhacay axadii shalay ahayd? Lars Vilks farshaxanayste Swedish 2007 wuxuu sababay dhibaato diblomaasiyadeed oo aad u adag oo soo wajahday dalkiisa Sweden iyo carada malaayiin muslimiin ah kadib markuu sameeyay sawir gacmeed aad u liito oo uu ku xumaynayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam. wuxuu sameeyay sawir gacmeed ay meyd ah kadibna uu ku xiray sawir uu leeyahay waa rasuulka islaamka sida uu sawiray. arrinkeenay in malaayiin muslimiin ay dibad baxaan Sweden ka dal ahaanna dhibaato diblomaasiyadeed ay soo wajahdo. wuxuu islahaa dhaawac gaarsiin muslimiinta laakiin ila sawiro sida ay isu bedeshay nolosha ninkaas sida ay ahayd laga soo bilaabo 2007 waa 14 sano. waqtiga intaas la eg ninkan noloshiisu waxay ahayd qeexitaanka micnaha dhabta ee jaxiimada. musqusha hadduu galayo waa inay ilaala raacdaa. tallaabo ma uuna qaadi karin ayadoona ilaalo ay la soconin. booliska Sweden ayaa u sameeyay ilaalo 24 saaca asagoo naftiisa u baqaayo. wuxuu ku noolaa cabsi iyo argagax oo ah runtii gurashada mirihii uu beeray. muuqaalkan aan daawanno waan soo laaban doonaa waana sharxaynaa waxa uu yahay. projekt kring homosexualitet och islam där hon då har använt sig av profeten Muhammed. labada kun iyo tobankii ninkan wuxuu ku sugnaa jaamacad ku taal Sweden. wuxuu jeedinay kelmad ay xaadir ka ahaayeen arday muslimiin ah. ha u malayn inuu kaliga imaaday. waxaa la socday tobaneeyo boolisa sida noo muuqato dabcan aan aragnay. sida caadada u haddaba ninkan asagoo u hoggaansamaya naftiisa aad ku liidato ayuu soo bandhigay kulankaas ardayda muslimiinta ay joogeen. ayuu ku soo bandhigay muuqaal oo islaamka iyo rasuulka si gooni ah ugu aflagaadeynayo. laakiin isla markiiba waxaa ka dhiidhiyay oo qayliyay oo ku haaday arday muslimiin ah. booliska ayaa soo gaaray san aragnay ninkan wuxuu noqon lahaa sidii moos la fiiqay oo kale. waa la qataqatayn lahaa. wama adraaka waxa laga wado waa la qataqatayn lahaa. waanu imaan doonaa qaabka u geeriyooday aan fiirino warbaahinta kala duwan ee saaka arrinkan wax ka qortay si uu hadalkan aan sheegan u noqdo mid ille oo aanan ahayn hadal aan iska leenahay. wakaaladda wararka Reuters waxay leedahay siday qortay waxaa geeriyooday ayaga waxay adeegsan ereyga Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waxaa geeriyooday ninkii Muhammad kartuunka ka sameeyay. wuxuu ku dhintay shil gaari. sidoo kale Sky News waxay leeyihiin Lars ninkii sawir gacmeedka ka sameeyay Muhammad ayaa shil gaari ku dhintay waqti uu ku jiray ilaalada booliska Sweden. sidoo kale Al Jazeera waxaa shil gaari oo aad u xun ku dhintay ninkii sawirada xun ka sameeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. qaabka uu u geeriyooday sida ay faafiyeen wakaaladaha kala duwan ayagoo runtii soo xiganayo hadalka booliska Sweden aan bal sheegno. horta marka koobaad ninkan daahan wuxuu jiray 75 sano. waxaa la socday laba boolisa. sida muuqatay waxay saarnaayeen gawaarida caadiga yaryar laakiin waxay la kulmeen shil kadib markuu gaari xamuul ah taraag ku malaasmay gaariga ay saarnaayeen. shil sababay dab inuu gawaarida qabsado. wararka ayaa leh darawalkii gaariga weyn waday xamuulkaa waday waa la badbaadiyey. ugu yaraan ma dhimanin waa dhaawac. halka ninkaas iyo booliskii ilaalinayay ay gubteen ay dambas noqdeen. muuqaalkan waa mid dhab ah oo laga soo qaaday goobta uu shilka ka dhacay. waxaan arki karnaa qiiqa iyo xaaladda muujinayso waxa meesha ka dhacay. ambalaasta booliska meesha taagan dadka gawaarida waxay muujinayaan waxa meesha ka dhacay. Swedish artist Lars Vilks has died in a traffic accident. Vilks had been living under police protection since 2007 after his sketch of the Prophet Muhammad provoked the Islamic community, causing him to receive threats on his life. inta badan kuwa sameeya sawir gacmeedyada xunxun ee nabiga ka dhanka ah waxay wajahaan nolol holac tufayso oo intooda badan waxay ku noolaadaan yaa ima cabsi yaa ima xitaa qaarkood
inay isdileen talow mid waxaa jirtay asal Marocco ka soo jeeday oo isdishay ku nooleed waddan ka mid ah wadamada Scandinavian-ka Emmanuel Macron waa sax inuu yahay madaxweyne dal laakiin raggaas ayuu ku mabda yahay waxaana lagu tilmaami karaa ninka ugu badan hogaamiyaasha Yurub ee dhibaato la kulmo haddii ay noqoto dhibaatadaas mid gudaha Faransiiska iyo mid ka imaanaysa caalamka kale waxaan wada maqalnay runtii dhowrkii maalin ee la soo dhaafay mashaakilka soo kala dhaxgalay Faransiiska Mareykanka iyo Australia arrinkuna uu gaaray in Faransiiska uu dib u soo ceshado safiiradiisa kadib dhibaatadii la xiriirtay heshiiskii gujisyada Leaving the embassy for who knows how long, France's ambassador to Australia stopped his car for a few words to reporters. I think this has been a huge mistake, a very, very bad. Faransiiska gudihiisana meel walba uu booqdo wuxuu la kulmayaa imma dharbaaxo inuu mid dharbaaxo mid inuu ukun ku soo tuuro arrinku wuxuu u muuqdaa meel walba uu tagay inuu mashaakil kala kulmo isbuucii hadda la soo dhaafay waxa lagu tuuray ukun sidoo kale isbuucan ayuu jeeday war sir ah oo keenay markuu faafay markii la sii faafiyay wargeysa Faransiiska ay faafiyeen in wadanka Jazaa'ir Algeria ay xanaaqdo kana soo qaadata Faransiiska safiirkii Algeria u jooga Faransiiska inay dib u soo ceshato Jazaa'ir inta kuma in ekaan arrinku sidoo uu weyn yahay darteed طبعا ogaanina wuxuu yahay استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا للتشاور وحظرت على الطائرات العسكرية الفرنسية عبور أجوائها وذلك إثر تصريحات للرئيس الفرنسي الجيريا جزائر وحي ممنوع دي ديارها فرنسيسكا قاران قوة دقالكا دول مرايو ودن كيدا ونصعده ودمد أفريكان كو فرنسيسكو قميست إلى هدبا ننكاس لباتدا وجهي وماكرون وحو شاقي هذا الآد أوغا حناجي أمد الجيريا أو إن جزائر سيدا أو شيء جزائر ودن كان ليه جزائر أفريقيا أقوين هذا ما أهين أمد جرتو كهر قميسيكا فرنسيسكا واحد جرمين أهين انتانا ميش استقين وحا حسيد مدن إن فرنسيسكو ديلي مليون وإنت الديوان قليا مليون يونس مليون هير الجيريا الغنى نيسا ودن هل كمليون إيه شهيد هوب نوكلير أنا وفرنسيسكو كتجابي جزائر عيري ميشاس أمد كمان جرين تاسو حق أيان أولهين إن أنقميسن runtii waa aqliyad liidato waana aqliyad ay hadda Yuhuudda Falastiin ku socdaan oo meeshan cid ugu maan iimaan anaga degnay dawlad Falastiin la ma jirin Emmanuel Macron asagoo isku dayayo xirashada kaba ka waaweyn ayuu raaciyay waa hadalkiisa in taariikhda Algeria ay been tahay in Turkidu ay qoreen waxayna u baahan tahay in dib loo qoro runtii waxa macquul ah sidoo kale arrinkan inuu mushkilad kale ka sababo dhibaato diblomaasiyadeed Faransiiska iyo Turkiga haddaba sida ay noo arkaan ninkan markuu hadalkaas leeyahay ayadoo nasiib xumo la fiirinayo hogaamiyaasha wadamadeena ka taliya iyo sidii ugu hoggaansamaan in dhala'aanta caalamkaas kale ayaa keenayo in dal uu ku tilmaamo ummad aanan jirin Trump madaxweynayaal Afrikaan oo madaxweynayaal leh ayuu wuxuu ku tilmaamay inay xoolo yihiin wax qiimo agtiisa kama lahan wax yar hadalka Macron uu sheegay Trump ay leeyihiin in dawladahanaga xataa kuwa dawladaha ay ka jiraan inay waxba u arag waxa kugu daliil ah ninkan dhalinyarada waxa lagu magacaabaa Maxamedu Wald Salahi injineer isgaarsiin Mauritania dalka Mauritania u dhashay bilowgii 2000 ayuu waxbarasho wuxuu ka helay wadanka Jarmalka kadibna wuxuu aaday Canada laakiin Mareykanka oo waqtigaas qof walba ku tilmaamay argagixiso ayaa yiri ninkan waa argagixiso wuxuuna ku sugan yahay Canada طبعا waxaa ka jirta dawlad iyo nidaam ummad naftooda ixtiraamayo Mareykanku ma awoodo kuma dhiiran karo in ninkan uu ku xiro Canada ama xitaa Jarmalka uu ku xiro طبعا dawladahaas qawaaniintoodii waxooda la ixtiraamaya haddaba ninkan si loo xiro waa in meel kale la geeyaa wadan muslim ah oo Mareykanku uu arko meel aan qaanuun ka soconin dawladaha madaxda ka talisan ay yihiin shaqaale ayaga u shaqeeyo Maxamedu waxa loo maleegay mu'aamarad ama shirqool wadanka ku soo laabo ehelkaada jiraan xukuumadda Mauritania in la leexay safiir wax una filinin baa ku dhacay oo wadanka si degdeg ugu soo laabo arrin muhiim ah jire ninkan dhalinyaro oo wax dambi aanan gelin shakiba ma gelin dalkiisu dib ugu soo laabtay laakiin markuu soo caga dhigay Mauritania ayaa la afduubay kadibna waxa la geeyay Urdun kadibna waxa la geeyay saldhigga Bagram ee Afghanistan kadibna waxa la geeyay Guantanamo Bay 14 sano ayuu ku jiray markuu hadlayo hadda qiirada uu hadlayo iyo oohinta iyo murugta iyo quusta indhihiisa ka soo baxaysa 14 sano markuu xabsiga Guantanamo ku jiray oo nooc walba oo niyadaada ku soo dhacay cadaab oo la kulmay ayaa la soo day 2016 Mauritania dib ugu soo laabtay ayadoona wax aad aan loo jeedinin waa la qabtay 14 sano halkan joog cadaab kadibna dhalinyaranimadiisi wax walba sidaas ay ku waayay waxa lagu qabtay dalkiisa
waad aragteen hadda wadamada galbeedka xitaa faransiiskan sidaas u liito يعني waxa macquul inaad maqasho faransiiska meel hebel duqay dal hebel dawlad ay ka jirto idan kama qaadanayo cid aan naftooda ixtiraamin طبعا cid ixtiraamaysa ma lahan runtii ninkaas halaagsamay warka ku saabsan ayaan idin la wadaagayay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh